horreyntii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda Puntland mudane Cabdilcasiis gudoomiye ku-xigeenka qaybta akademiga jaamacadda Boosaaso Marwo Fawsiyo iyo dhammaan macallimiinta kulliyadda ardayda iyo kasoo qaybgalayaasha kaleba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. farxad gaar ayay ii tahay maantay in ay si wanaagsan oo guul ah aynu ku qabsoontay xafladan soo dhaweynta ardada cusub ah ardadaas oo 4 sano soo socota ka mid ahaan doona insha Allah ardada kulliyadda culuumta bulshada ee jaamacadda Boosaaso. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan dhaho mar labaad iyo mar koowaadba soo dhawaada. waxay la tahay doorashadii saxda ahayd ayaad samayseen inaad ka mid noqotaan jaamacadda Boosaaso. waa marka koowaad jaamacadda ugu tayada iyo aqoonta fiican Puntland. sidoo kaletana mar labaad waxaad doorateen kulliyad loogu baahida badnaa bulshadeena sababtoo ah qofka dooranaya ama baranaya cilmiga social science-ka wuxuu daweynayaa mashaakilaadka mujtamaca ama bulshada ay mataqaanaa bulshadeena, halka dhakhtarka ama injineerku uu daweynayo ama wax ka qabanayo baahida hal shakhsi uu leeyahay. marka waxaan isleeyahay waxaa sidoo kale doorateen kulliyad ugu habbooneyd. ninkana markii wajiyada la fiirsho waxayna ka muuqataa firfircooni iyo kartaan isleeyahay wax badan ayay uga qaban karaan arrimaha jira. mar walba sida jaamacadda iyo kulliyadda caanka ku ahayd waxaan isku dayi doonaa insha Allah haddii Ilaahay idinka dhigo inaan ardadan aan ka caawino ama idinka caawino wax alaala waxaad u baahan tihiin ha noqoto adeegyadii mataqaanaa waxbarashada iyo midii practicalka ama ha noqoto mid kastoo mataqaanaa wax badan ay ka saari doonta. balse waxaan rabaa si gaara inaan kula dardaarmo waxaana aynu kula dardaarmayaa ay tahay ka mid ah noqoshada social science-ku inaadan u qaadan inay tahay kulliyad fudud inaad doorateen, balse waxaad doorateen mas-uuliyad bulsho iyo inaad ka qabataan beri ka maalin. waxaa laydin tababarayaa laydin diyaarinayaa mustaqbalka waddankan inaad wax ka bedeshaan adeegyada bulshada iyo mashaakilaadka bulshada aad wax ka qabataan, noqotaan hogaamiyaal waxtar u leh bulshadooda beri ka maalinna lagu aayo. shaqadaasna marka inaad qabataan waxa u baahan tihiin diyaar garow dhan kasta ah oo aan kaliya ku koobnayn inaad noqotaaniin arday galaas soo xaadirta imtixaanka ku baasa, laakiin inaad noqotaan arday mar walba mufakiriin ah oo ka fakaraya sida wax uga qaban lahaayeen arrimaha bulshada haysta. arday u diyaarsan inay cilmi ahaan usoo bandhigaan waxay barteen oo mar walba noqdaan baaxisiin ama dad research sameeya. arday u diyaarsan mustaqbalka fog inay mataqaanaa hogaamiyaal wax ka bedela ama change makers waxa luqadda qalaad lagu yiraahdo wax ka bedela mashaakilaadka bulshadeena haysta inaad noqotaan. dhammaan hiraaladaas aan tirayay iyo kuwo kaleetaba lama gaari karo haddii aydan maantay guntiga dheesha aydan uga dhigin sidaad ugu diyaargaroobi lahaydeen arrinkaas, sidaad uga qaban lahaydeen uguna diyaargaroobi lahayd naftiina ugu diyaarin lahaydeen. waxaad ka soo gudubteen waxbarashada dugsiga sare wax walba idinku diyaarayn lahaa, laakiin hadda waxaa usoo gudubteen waxbarasho sare oo loo baahan yahay inaad idinku noqotaan hormuudka iyo hagaha hiraalkiina waxbarasho. taasna laguma gaari karo haddii aad isdhigataan. insha Allah waxaan rajayn doonaa inaad talooyinka caawa halkan ka bixi doona tusmooyinka ay la wadaagi doonaan khubaro kulliyadda ka tirsan marti sharafta barnaamijkan ee kala soo qayb gashay iyo dhammaan macallimiinta iyo ardada idinka soo horeysay intaba inaad si fiican aad u weeleyn doontaan wax badanna aad ugu qaadan doontaan. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan dhaho kusoo dhawaada jaamacadda Boosaaso iyo kulliyadda culuumta bulshada. waxaana rabaa أنا هذا kusoo gabagabeynaya inaan dhammaan kasoo qaybgalayaasha ugu mahadceliyo kasoo qaybgalka munaasabada aad iyo aad ayaad mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.